haddana war kale ayaa Itoobiya ka soo baxay waxaa hadlay la taliyaha amniga qaranka ee dalka Itoobiya Ridwan Hussein. Ridwan waa diblomaasi xeel dheer oo in badan ku soo jiray nidaamka dawladeed ee dalka Itoobiya. hadda waxa uu yahay la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya. waa ninka lagu tilmaamay inuu heshiiskan si aad uga shaqeeyay oo bilow ilaa dhamaad uu ka warhayay. dhowr jeer ayuu Hargeysa yimi oo kulamo uu kula yeeshay madaxda sare ee Somaliland. waxaa sidoo kale uu goobjoog ka ahaa markii isfahamka la saxiixayay. haddaba Ridwan ayaa la hadlay warbaahinta Itoobiya waxaana uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay Somaliland isla fahmeen ee lagu qoray heshiiska. waxa uu yidhi goobaha naloo tilmaamay ee nala siin doono waxa ay Somaliland ku tilmaantay inay tahay lughaya. በርበራ ይርቃል ዛሬ ተሻለ ይቀርባል እሱ በነሱ በኩል ደግሞ ሁለቱን አማራጮችን ወስደን ሎጋያ የሚባል ቦታ አለ ለኛ ድንበር ቅርብ የሆነ ቦታ አነስ ያለ ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ከሀገራችን ድንበር እዛ አካባቢ ላይ እንሰጣቸዋለን የሚል ተስማምተዋል። ርቀቱን በተመለከተ የነሱ ያሉት አለ እኛ ምንድነው የነበረው አለ አማካይ ላይ ተገናኝተን አማካይ ቦታው በ20 ኪሎ ሜትር የሚሆን ቦታ ቤዝ ይኖርናል ማለት ነው። waxa kale oo tilmaamay in arinta aqoonsiga Itoobiya ay ballan qaada ay dhacayso marka ay degaan saldhiga dhulkana ay la wareegaan heshiiskana la dhameystiro markaasi kadib ayaa Itoobiyana ay qaadan doontaa mowqifka markaasi ay ka istaagayso aqoonsiga Somaliland. waraysiga oo af Amhari ku baxay ayaa sidoo kale waxa lagu tarjumay af Soomaali waxaana sii daayay waaxda af Soomaaliga ama laanta afka Soomaaliga ee telefishinka Itoobiya. bal haddaba in dul istaagno meelaha kala duwan ee Ridwan uu markaasi ku soo hadal qaaday in heshiiskaasi uu dhigayay qodobo Itoobiya ka jawaabaya baahideeda iyo sidoo kale Somaliland aqoonsigeeda. Ridwan oo ay soo duween telefishinka Itoobiya laantiisa Soomaaliga hadalkiisa ayaa waxa uu yidhi meel naga fogeyn oo noo dhow oon maalgelin looga baahnayn ayaanu ku ilaashan karnaa amnigeena isla markaana aan ku fulin karnaa badeecadaha la soo dejinayo iyo kuwa la dhoofinayo. marka in arrintaas iyada loo baahan yahay ayaa wada hadal laga yeeshay. tan koobaad uu keenayo waxa weeye fursadaha ayuu ballaarinayaa. tan labaad dokumentigan waxaa ku dhex jira oo muujinaya in heshiiskaasi uu 50 sano soconayo. balse dhinacayaga waxaanu jeclaan lahayn inuu 99 sano ama 100 sano noqdo. marka 50 sano xataa haddii sii socdo waa 2 jiil. taasi naftirkeeda waa mid si joogta looga faa'iideysan karo oo waqti dheer soconaya. dokumentiga afgarashadu arrintaas iyada ayuu tilmaamayaa. xilligaasi marka la gaaro muuqaalka Itoobiya iyo ka adduunku wuu isbedeli doonaa. marka haddii la helo irid laga soo galo lagana baxo ilaa 2 jiil taasi waa mid la isku hadlayn karo ayaa laga soo qaadi karaa. marka su'aasha ambassador Ridwan la weydiiyay kale waxay ahayd waxaa la sheegaa in dawladdu ayna heshiiskaasi afgaradka waxa ku dhex jira ayna si cad u sheegin. marka nuxurka ugu waaweyn ee ku jira muxuu yahay? ambassador Ridwan Hussein oo ka jawaabaya su'aashaasi waxa uu yidhi የተያዘ ህዝብን ይዘን ምንኖር ከመሆናችን ጋር ተያይዞ ያንን ትስስር ይበልጥ ለጋራ መጠቀም በሚያስችል ደረጃ ላይ በሁሉ መስኮች የሚኖር ትብብርን መካተት አለበት የሚል ነው አንዱ። labadayada ummadood waa ummad isku xidhan. marka arrintani waxay keenaysaa in iskaashigooda ay sii xoojiyaan iyo ka faa'iidaysiga wadajirka ah. marka dhammaan qaybaha kala duwan iskaashiyada inay ka jirayaan ayaa heshiiskaasi ama dokumentigaasi lagu muujiyey. kaasi waa mid. ka kale waxa uu yahay waa mid keenaya in masha uu ka saaro halista Itoobiya ku aadan ama halista Itoobiya soo gaadhi karta. wuxuuna yahay mid u dhigma heerka koritaankeeda dhaqaalaha. waxaa kaloo masha ka imanaya oo ka difaaci karaa qaska iyo qalaaskaha geyiga ka jira oo arrintaasi khatar uma gelayso. ta kale waxa weeye nabadgelyadeeda iyo ammaankeeda iyo kan geyigaba doorka lagu leeyahay ayay ka qayb qaadanaysaa. taas ayuu saamaxayaa. marka Itoobiya waxay u baahan tahay irid badeed oo si gaara loo soocay oo la muujiyey saldhig military oo isla markaana adeega ganacsiga bixiya. meel la yidhaahdo Logaya oo xadka Itoobiya u dhow ayay dhaheen waan idinka siinaynaa. kilomitirka uu noo jirayna waa tiro gaaban oo yar. taas ayay oggolaadeen. marka meel 20 kilomitir dhan ayaanu saldhig ku yeelan doonaa. marka dokumentigaasi heshiiskiisa afgaradku waxa uu muujinayaa in dhul kira ah aan Somaliland ka helayno
heshiiskaasi kiraduna uu 50 sannaad socon doono oonu 50kaa sanno ka faa'iidaysan doono. ambasador ridwaan xuseen la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya ayaa telefishinka Itoobiya waxa uu weydiiyey maxaa Somaliland laga siin doonaa dhanka Itoobiya oo la soo hadal qaaday diyaaradda Ethiopian Airline ama sharikadda Ethiopian Telecom. arrimahaasi ayaa markaasi uu soo hadal qaaday oo uu ka jawaabay. Ethiopiana qaab u dhigma kirada dhulkaasi ayay qayb ka siinaysaa shirkadda duulimaadka Ethiopian Airlines. markaa nuxurka weyni waa kaas isaga ah. laakiin waxaa kaloo kaasi la socdo oo jira muddo 30 sano gaaraya Somaliland aqoonsi mayna helin. waxaa jirta inay isku dayeen inay aqoonsigaasi helaan. haddaba heshiisku wuxuu arrintaasi ka sheegayaa muxuu noqonayaa mowqifka Ethiopia ee arrintan iyada ku aadan. marka arrintan iyada haddaan ka hadlo markii heshiiska si dhammaystiran loo fuliyo in dhulka la wareegno ee geeddi-socodkaasi la soo gebagabeeyo dadaalka iyagu u gelayaan sidii aqoonsi u heli lahaayeen arrinta ku saabsan Ethiopia mowqifkeeda ayay qaadan doontaa. taas iyada ayaa dokumentiga lagu muujiyey. marka dokumentigani waa mid muujinaya inaannu ku heshiinay inaannu heshiis yeelanno. saasaana heshiiskaasi ama dokumentigaasi is-afgaradka lagu saxeexay.